munaasabadan uu xilka ku wareejinayay taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax oo si ku meel gaar ah u ahaan doona taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. munaasabada xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiil iyo saraakiil xigeeno ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan. Sarreeye Guuto Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku wareejiyay xilka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax isagoo dhanka kala guud ahaan dawladda iyo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan booliska iyo taliyaha cusub. والله عاوية ومسؤولين بسمانتي أنكوري جي لو عاوية لو درب استوى تاسانينا وحن أعتنيه جينا دردار المعبانة وطليات تغامين وحن جينا وحن الله عليه أهلية يبنى الحقيقة هو لما سرية ونكفريه وحن جينا إنه ماشي أن يحمريني وكسر من دونه هروا يسيروا دونه. Generaal Mukhtaar Xuseen Afrax taliyaha cusub ee sida ku meel gaarka u hayn doono xilka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in intii ay wada shaqeynayeen taliyihii hore ciidanka Cabdixakiin Siciid Saacid si wanaagsan marka ay u soo wada shaqeeyeen booliskana wax badan u soo qabtay haddana si wanaagsan ay u wada shaqeyn doonaan. runtii Saacid waxa uu madcilna dawlad farabadan oo soo galay isbedel qoys sameeyay احترام في شرف ولا يقول استقيلي والله العلة هنتي بربارك كويس يقول لو قال لنا عيد مفروض ان شاء الله يوم مركا واسقينا ولا سقينا اسكاش ولا يقول سقينا طلع ما تسوينا بلا يراهو حطيت على الارض الله سبحانه